cashirkan waxaan ku baranaynaa factoring terms with common factor sida loo factor gareeyo termska wata common factorka marka ugu horeysa buugaaga xisaabta tu kugu yiraahdo factor 5x squared plus 10 ama tusaale noocan oo kale ah marka ugu horeysa waxaad subinaysaa waxaa la soo helaa halkan waxaan ku haysanaa laba term ayaan ku haysanaa 5x squared waa hal term lambar 10 waa hal term marka waxaan soo helaynaa greatest common factor kooda ayaan soo helaynaa ama lambarka ugu weyn oo labadoodaba loo qaybin karo ayaan soo helaynaa marka waxaa la subiyaa waxaa la dhigtaa 5x oo leh exponent labo haddana kii kalena wuxuu ahaa termkii kalena wuxuu ahaa lambar 10 markaas waxaa la subiyaa prime factorization ayaa la subiyaa waa maxay prime factorization of midkan waa 5 lagu dhuftay hal lagu dhuftay 5 waa iska 5tii haddana lagu dhuftay x oo leh exponent 2 5 ku dhufo hal ku dhufo 5 hal ku dhufo 5 waa 5 kusii dhufo 5 kusii dhufo x oo leh exponent 2 waa 5x oo leh exponent 2 ayuu noqonayaa kana prime factorization kiisa waxa weeye waa 2 lagu dhuftay 5 2 ku dhufo 5 waa 10 marka greatest common factorka waxaa la fiiriyaa lambarka isku midka ka yihiin kuwan prime factorization kooda lambarka isku midka ka yihiin ayaa la fiiriyaa marka lambar 5 ay isku mid ka yihiin lambar 5 ay labadoodaba leeyihiin marka greatest common factor waa lambar 5 ama lambarka ugu weyn oo labadoodaba loo qaybin karo waa lambar 5 weeye marka isagaan qaadaynaa waxaan u qaybinaynaa labadooda ayaan u qaybinaynaa si aan u factor garayno marka wuxuu ahaa keeni 5x oo leh exponent 2 lagu daray 10 ayuu ahaa soo maaha marka waxaan subinaynaa 5 baad dhiganaysaa 5 markaad dhigatid parenthesis ayaad dhiganaysaa marka waxaa la subiyaa 5 baan waxaan u qaybinaynaa 5x oo leh exponent 2 maxaa kuu soo haraya 5 hadaa loo qaybiyo 5 waa hal marka halka lama dhigto waxaa la dhigtaa x oo leh exponent oo x square ayaa meeshaan noogu soo hartay hadda 5 baad qaadaysaa 10 baa u qaybinaysaa 5 u qaybi 10 10 loo qaybiyey 5 waa meeqo 10 loo qaybiyey 5 waa 2 marka labadii aad dhiganaysaa marka hadda waad factor garaysay wuxuuna noqday 5 parenthesis x square lagu daray 2 parenthesis hadda waan hubin karnaa 5 ku dhufo si aan u hubino waxaan subinaynaa distributive law ayaan isticmaalaynaa 5 waxaad ku dhufanaysaa x square 5 lagu dhuftay x square waa 5x square 5 waxaad ku dhuftaa 10 5 lagu dhuftay 10 waxaan ka wadaa 5 ku dhufa 2 5 lagu dhuftay 2 waa 10 marka waan saxanahay soo maaragtay marka hubinay ama check garaynay problemkeeni original problem ayaan ku soo noqonay oo ahaa 5x square plus 10 tusaalahan waan tirtiraynaa waxaan subinaynaa tusaale kale hadda waxaan subinaynaa tusaalahan 12x oo leh exponent 3 lagu daray 15x oo leh exponent 2 baa waxa lagu yiri factor gare ayaa lagu yiri marka waxaad subinaysaa marka ugu horeysa waxaad soo helaysaa greatest common factorka ama lambarka ugu weyn oo labadoodaba loo qaybin karo 12 loo qaybin karo 15 loo qaybin karo ayaa soo helaysaa haddii aadan aqoon sida loo soo helo greatest common factor waxaad daawataa video kale ku saabsan sida loo greatest common factor daawo video kale la yiraahdo 12x oo leh exponent 3 ayuu ahaa midkaana wuxuu ahaa 15x oo leh exponent 2 marka waxaan soo helaynaa greatest common factor ayaan soo helaynaa marka si loo soo helo waxa weeye waxaad subinaysaa prime factorization ayaad subinaysaa haddii aadan aqoon prime factorization waxaad daawataa video kale ku saabsan prime factorization marka 12 waa maxay prime factorization of 12 waa maxay waa 2 lagu dhuftay 2 lagu sii dhuftay 3 lagu sii dhuftay haddana xt oo leh exponent 3 2 ku dhufo waa 4 kusii dhufo 3 waa 12 kusii dhufo x oo leh exponent 3 waa 12x oo leh exponent 3 15 waa prime factorization kiisa waa 3 lagu dhuftay 5 weeye lagu sii dhuftay
muxuu ahaa oo leh exponent labo. marka hadda waxaa la fiiriyaa lambarada ay isku midka ka yihiin prime factorizationkooda. lambar labo kon ma lahan, lambarka isku midka ka yihiin waa lambar 3 ay isku mid ka yihiin. marka lambar 3 wuxuu noqonayaa greatest common factorka ama lambarka ugu weyn oo labadoodaba loo qaybin karo, kulligood loo qaybin karo. lambarka ugu weyn oo kulligood loo qaybin karo, kan waa loo qaybin karaa, kan waa loo qaybin karaa, waa lambar 3. waa maxay hadda xarfaha isku midka ka yihiin? waa maxay xarafka x ay isku mid ka yihiin, kan wuxuu leeyahay x, kan wuxuu leeyahay x. marka maadaama ay xarafka x isku mid ka yihiin, waxaa la suubiyaa, waxaa la qaataa xarafka ugu exponent yar. xarafka ugu exponent yar waa midkan, wuxuu leeyahay exponent 2. marka isagaa soo qaadanayna maadaama uu ugu exponent yar yahay. kan waa 2 exponentigiisa, kanna waa 3. marka 2 waxay ka yar tahay 3 bay ka yar tahay. marka kan ugu exponent yar ayaan qaadanaynaa oo ah x oo leh exponent 2. marka greatest common factorka wuxuu noqday 3x square ayuu noqday, 3x oo leh exponent 2. marka 3x oo leh exponent 2 waa lambarka ugu weyn oo loo qaybin karo kan iyo kan. marka isagaan u qaybinaynaa. marka wuxuu ahaa problemkan, wuxuu ahaa tusaalaheena 12x oo leh exponent 3 lagu daray 15 ayuu ahaa. 15x oo leh exponent 2 ayuu ahaa. marka waxaan subinaynaa, waxaan dhiganaynaa greatest common factorkeeni oo ahaa 3x oo leh exponent 2. marka saas u dhigatid baa waxaad la dhigtaa parenthesis ayaa la dhigtaa parenthesis. marka saas u dhigatid baa waxaa la subiyaa 12x oo leh exponent 3 baa waxaa loo qaybiyaa 3x oo leh exponent 2. muxuu noqonayaa 12 u qaybi 3, 12 loo qaybi 3 waa 4. 4 markaa saas u heshid x oo leh exponent 3 waxaad u qaybisaa x oo leh exponent 2. wuxuu noqonayaa x oo leh exponent 1. markii la isku qaybinayo xarfaha waxaa la subiyaa exponentiyadooda ayaa la kala jaraa. marka 3 waxaad ka jartaa 2, wuxuu noqonayaa 1 ayuu noqonayaa. marka halka lama dhigto, mar walba uu qarsoon yahay. haddii aadan aqoon sida exponentska la isugu qaybiyo, waxaa daawataa videoga kale oo ku saabsan division of exponents daawo ama isu qaybinta exponentska. marka hadda waxaan subinaynaa 15x oo leh exponent 2 baan waxaan u qaybinaynaa 3x oo leh exponent 2. marka 15 u qaybi 3, 15 loo qaybiyey 3 waa 5. hadda xarfahan isku qaybinaynaa, marka lambaradaan isku qaybinay x oo leh exponent 2 waxaad u qaybisaa x oo leh exponent 2 waa ever baa soo baxaya, sababtoo ah markaa isku qaybinaysid xarfaha waxaa la kala jaraa exponentiyadooda. 2 kanoo leh 2 ka jar 2 waa ever. marka meeshaan wuxuu yeelanayaa exponent xarf oo dhan ma yeelanayo. marka hadda waan hubin karnaa. marka hadda wuxuu noqday 3x square parenthesis 4x plus 5x haddana parenthesis ayuu noqday. marka waan hubin karnaa 3x square lagu dhuftay 4x. horta kan waa midkan waa inaad ogaatid inuu yahay factored form of kuwan, isagoo la factor gareeyay. jawaabteenu waa midkan. marka hadda jawaabteenu waan hubinaynaa inaan saxsanahay in kale. 3x square waxaad ku dhufataa 4x square. 3 ku dhuf 4 waa 12. 3 lagu dhuftay 4 waa 12. x square waxaad ku dhufataa x square waxaad ku dhufataa x waa x oo leh exponent 3. 3 waxaad ku dhufataa 5 waa 15. 3 ku dhufta 5 waa 15. x tin waa soo qaadanaysaa, waa ku dhiganaysaa 3x square waxaad ku dhufataa 15. waxaan ka wadaa 3x square waxaad ku dhufataa 5 waa 15x square. marka waan saxanahay jawaabteena. marka jawaabteenina waa tan. tusaalahan waan tirtiraynaa, waxaan subinaynaa mid kale. hadda waxaan subinaynaa tusaalahan 6x oo leh exponent 7 laga jaray 8x oo leh exponent 5 lagu daray 14x oo leh exponent 4 laga jaray 3 waxaan ka wadaa 2x oo leh exponent 3. marka ugu horeysa waxaan subinaynaa, waxaan qoranaynaa 6
waxaan qoranaynaa 6x oo leh exponent 7 haddana kulligood baa qoranaynaa waxaan soo helaynaa greatest common factor-kooda marka si bobsis ayaan ku subinayaa lambarka kale wuxuu ahaa negative 8x oo leh exponent 5 kan kale wuxuu ahaa 14x oo leh exponent 4 kan kalena wuxuu ahaa negative 2x oo leh exponent 3 ayuu ahaa marka hal mar baan qorayaa bobsis hadda prime factorizationka waan subiyey hadda waxaan subinaynaa waxaan raadinaynaa lambarada waxaan raadinaynaa greatest common factor-ka ama lambarada ugu weyn oo labadoodaba loo qaybin karo marka waxaa la subiyaa waxaa la fiiriyaa lambarada ay isku midka ka yihiin kan 2 lambar 2 ayay isku mid ka yihiin marka waan calaamadsanaynaa lambarka isku mid ka yihiin 2 ay isku mid ka yihiin 2 kulligood waxay isku mid ka yihiin 2 marka waxaan qoranaynaa 2 GCF kan wuxuu noqonayaa greatest common factor kan wuxuu noqonayaa 2 haddana xarfahay isku mid ka yihiin kan wuxuu leeyahay x kan wuxuu leeyahay x kan wuxuu leeyahay x kan wuxuu leeyahay x marka xarfaha kulligood x ay isku mid ka yihiin marka waxaan subinaynaa xarafka waxaa la qaataa xarafka ugu exponent yar ayaa la qaataa marka xarafka ugu exponent yar kan wuxuu leeyahay 7 kan wuxuu leeyahay 5 kan wuxuu leeyahay 4 kan wuxuu leeyahay 3 marka kan baan qaadanaynaa sababtoo ah waa midka ugu exponent yar exponentigiisana waa lambar 3 marka waxaan qaadanaynaa x oo leh exponent 3 maadaama uu ugu exponent yar yahay marka waxaan subinaynaa greatest common factor kan wuxuu noqday 2x oo leh exponent 3 marka waxaan subinaynaa 2x oo leh exponent 3 baan qaadaynaa waxaan u qaybinaynaa kulligood kan si aan u factor gareyno marka waxaan subinaynaa waxaad dhiganaysaa muxuu ahaa problemkani sidaas ayuu ahaa problemkani marka waxaan dhiganaynaa marka ugu horeysa waxaan dhiganaynaa 2x oo ah greatest common factor kii ahaa oo leh exponent 3 ayaan dhiganaynaa parenthesis ayaan dhiganaynaa marka waxaan subinaynaa kan baa waxaan qaybinaynaa kan 6x oo leh exponent 7 waxaa u qaybisaa 2x oo leh exponent 3 6 u qaybi 2 6 laba loo qaybiyey waa 3 6 laba loo qaybiyey waa 3 x oo leh exponent 7 waxaad u qaybisaa x oo leh exponent 5 x oo leh exponent 3 waa maxay marka xarfaha isku qaybinayso waxa subiyaa exponentiyadooda ayaa la kala jaraa 7 waxaad ka jartaa 3 waxa ku soo haraya 4 hadda kan waan subinay waxaa noo dhiman negative 8 negative 8 u qaybi 2 waa negative 4 xarfahooda isku qaybi kan oo leh exponent 5 u qaybi kan wuxuu helaysaa kala jar exponentiyada 5 ka jar 3 waa 2 haddii aadan qoon sida isku qaybi exponentiyada waxaa taa video kale ku saabsan division of exponents isu qaybinta exponentska hadda kan waan subinay kan baan subinaynaa 14 u qaybi 2 14 laba loo qaybiyey waa 7 x yada isku qaybi haddana x oo leh exponent 4 u qaybi x oo leh exponent 3 waa x oo leh exponent 1 4 ka jar 3 waa 1 marka halka lama qorto mar walba uu qarsoon yahay hadda 2 u qaybi 2 negative 2 u qaybi 2 waa 1 negative 1 x yada isku qaybi x isku qaybi x oo leh exponent 3 u qaybi x oo leh exponent 3 waa ever marka x oo dhan ma soo harayso sababtoo waa la kala jarayaa 3 ka jar 3 waa ever marka saas ayaan soo haray jawaabteeni oo factored form-ka wuxuu noqday sidan marka waan hubin karnaa hadda ma hubinaa haa waan hubinaynaa bal inaan saxsanahay in kale marka hadda waxaan subinaynaa waan isku 2x oo leh exponent 3 baan waxaan ku dhufanaynaa kulligood marka hadda 2x oo leh exponent 3 waxaad ku dhufataa 3x oo leh exponent 4 wuxuu noqonayaa 2 ku dhufo 3 waa 6x oo leh exponent x oo leh exponent 3 waxaad ku dhufataa x oo leh exponent 4 waa 7 marka la isku dhufanaya xarfaha waxaa la isku daraa exponentiyadooda 3 ku dar 4 waa 7 haddii aadan qoon sida la iskugu dhufto exponentska waxaa taa video kale ku saabsan multiplication of exponents hadda kan 2 waxaad ku dhufataa negative 4 2 lagu dhuftay negative 4 waa 8 negative 8 weeye 2 lagu dhuftay negative 4 waa negative 8 xarfaha isku dhufa marka x oo leh exponent 3 ku dhufa x oo leh exponent 2 waa x oo leh exponent 5 2 waxaad ku dhufataa 7 2
laba lagu dhuftay 7 waa 14 xarfaha isku dhufo marka x oo la exponent 3 waxaad ku dhufataa x oo la exponent hal waa x oo la exponent 4 sababtoo ah 3 waxaad ku dartaa kan oo leh exponentigiisa hal 3 lagu daray hal waa 4 labo x oo leh exponent 3 waxaad ku dhufataa negative hal wuxuu noqonayaa laba lagu dhuftay negative hal waa negative 2 exponentigiisana waa soo qaadanaysaa kan maadaama uusan lahayn xarfo isku dhufto waa ku qoranaysaa 3 markaan saxsanahay